waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh xildhibaanada golaha shacabka inay ku durwanaagsanaadaan weli waxaa socda shaqooyinkii golaha shacabka way socdaan shaqooyinkii golaha shacabka way socdaan halkan waxaan ansixinay sharcigii doorashada lagu geli lahaa 2021 weli qorshihii doorashada wuu socdaa ilaa qorshaha doorashada ay dhamaystiraan dowlad goboleedyada iyo hay'adaha kale oo federaalka oo u xil saaran qabashada doorashada baarlamaanku uu shaqeynaya waxay la mid tahay dadka qaarkood waxaan u malaynayaa inay u fikirayaan xafiis markaa fadhidid oo adigu mas'uul ka tahay xafiiskaas ilaa uu yimaado qofka xafiiska kaala wareegi lahaa oo xafiiskaas shaqadiisa qaban lahaa xafiiskaasi inaad fadhidid oo shaqadii aad sii wadid waaye taasaa dowladnimada ah caalamka kama jiro institution jira weliba baarlamaan oo shacabkii mathalaya aydan baarlamaankii kale uusan imaan oo shaqada lagala wareegin uu iska kala tago waxaan idin sheegaynaa halkan annaga waxaan ka ansixinay in golaha shacabka ama baarlamaanka uu joogi doono ilaa uu ka yimaado baarlamaankii bedeli lahaa muddadaas baarlamaanka uu joogana shaqadii la rabay waa inuu qabtaa saddexdan hay-adood oo ah hay-adda sharci dejinta hay-adda fulinta iyo cadaaladda ama garsoorka saddexdaas hay-adood waa saddexda hay-adood ee dowladdu ay ku dhisan tahay midkood hadduu meesha ka maqnaado taas micneed waxaa waaye dowladii ma jirto waaye marka waxaan idin sheegaynaa xildhibaanada inay soo xaadiraan markay soo xaadiraan kadibna ay fadhiyaan ilaa shaqadooda ay ka dhamaysanayaan waajibaadaa saaran muddo xileedka baarlamaankan wuxuu dhammaanayaa bisha December 27 in laba meeladoo meel ka mid ah baarlamaanka kale uu diyaar ahaado haddii diyaar uu ahaan waayo ma la kala tegaya marka su-aal la isweydiina ilaa hay-addii bedeli lahayd ay ka imaanayso baarlamaankaana uu shaqaynayaa xildhibaanada halkan fadhiya golaha shacabka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin xildhibaanada qaarkood 9kii subaxnimo halkan soo fariisteen ilaa hadda way fadhiyaan waxaan u sheegaynaa guddiga joogtada berrito shiraan leenahay guddiga joogtada ajandana wuxuu ku saabsan yahay isla arrimaha aniga aan ka hadlayo soo xaadirada baarlamaanka